jasiirad ku dhex qarsoon badweynta India meel uu Mareykanku si weyn ugu tashado loolanka dunidana muhiimad u leh jasiirad laga xoogay dadkii lahaa taariikh murugsanna la saaxiiba jasiiradda Diego Garcia dhul ahaan waxay dhacdaa badweynta India bartamaha meel u dhaxaysa bariga Afrika iyo koonfurta Asia waxayna ka tirsan tahay silsiladda jasiiradaha ee loo yaqaano British Indian Ocean Territory kuwaasoo hoostaga boqortooyada Ingiriiska dalka dhaca geeska Afrika ee ugu soo dhow waa Soomaaliya waana jasiirad meel geeri go'aana dhacda balse istiraatiijiyad ahaan muhiim ah oo waa mid uu Mareykanku ku tashado waa mid dhacda wadnaha badweynta Hindiya waxayna saldhigga ku yaala uu diiradda saaraa marinbiyoodyada muhiimka ah sida Hormuz, Malacca iyo marinada kale ee isku xira bariga dhexe Asia iyo Afrika tani ayaana Diego Garcia ka dhigaysa xudunta istiraatiijiyadeed ee ciidamada badda ee Mareykanka iyo Ingiriiska maadaama ay awood u leeyihiin inay gaaraan baraha istiraatiiji ee bariga dhexe Afrika iyo koonfurta Asia waliba muddo gaaban gudaheed inkastoo ay tahay jasiirad yar haddana juqraafi ahaan waa goob qarsoon oo dunida saameyn ku leh si fududna looga xakameyn karo dhaqdhaqaaqa maraakiibta ganacsiga iyo militariga ee badweynta Hindiya jasiiraddan dhirirkeedu waa 44 kilomitir halka balaceeduna uu gaari karo ilaa 12 kilomitir balse dhulkeeda rasmiga ah ee badanaa la adeegsado waa ilaa 27 kilomitir isku wareega badda ku wareegsanna waa mid aad u qoto dheer cimilada Diego Garcia waa mid diiran oo sanadka oo dhan qoyaan leh wuxuuna heerkulkeedu u dhaxeeyaa 27 degree Celsius ilaa 31 degree Celsius xilliga uu roobka ugu badan uu ka da'ana waa bilaha November ilaa March waa jasiirad uu aad uga baxo geed qumbaha xeebaha ee Cocos waxayna ahayd mid cagaaran oo dabiici ah inkastoo haatan inteeda badan laga helo saldhigyo ciidan garoomo diyaaradeed iyo dekedo military waxay ka mid tahay jasiiradaha silsiladda ah ee Jagos kuwaasoo ka kooban in ka badan 60 jasiiradood oo yaryar waana kuwa dhammaantood si dabiici ah u samaysmay jasiiradahan midda ugu muhiimsan waa Diego Garcia waxayna u muuqataa ama la dhihi karaa waa caasimadda jasiiradaha Jagos markii ugu horeysay ee jasiiradda Diego Garcia la ogaaday waxay ahayd qarnigii 16aad gaar ahaan xilligii ay badmareenadii Boortaqiiska bilaabeen inay sahmiyaan badweynta Hindiya wuxuuna jasiiraddan magaceeda ka yimid badmareen Boortaqiis oo lagu magacaabayay Diego Garcia de Magua waxaana la rumaysan yahay inuu yahay shakhsigii ugu horeeyay ee reer Yurub ee jasiiraddan arkay dabayaaqadii qarnigii 18aad waxaa jasiiraddan gacanta ku dhigay Faransiiska wuxuuna halkan ka hirgeliyay beeraha timirta iyo qasabka sokorta asigoona keenay addoomo Afrikaan ah iyo shaqaale ka soo jeeday jasiiradaha Seychelles iyo Madagascar si ay uga shaqeeyaan beeraha markii uu Faransiisku ku guul dareystay dagaaladii Napoleonic Diego Garcia iyo dhammaan jasiiradaha Jagos waxaa la wareegtay boqortooyadii Ingiriiska waxaana la hoosgeeyay maamulkii Ingiriiska ee Mauritius markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka 1945 muhiimadda Diego Garcia si weyn ayay isu bedeshay qarnigii 20aadna gaar ahaan 60meeyadii Ingiriisku wuxuu diiradda saaray sidii uu ilaalin lahaa joogitaankiisa badweynta India asigoona waliba kaashanaya Mareykanka oo isna doonayay saldhig weyn oo bartamaha badweynta Hindiya ku yaala si uu ilaaliyo danihiisa bariga dhexe Asia iyo Afrika taasi waxay horseeday in sanadkii 1965 uu Ingiriiska Mauritius ka gooyo jasiiradaha yaryar ee Jagos gaar ahaan ka hor intaysan Mauritius helin xorriyaddeeda waxaana jasiiradaha laga gooyay Mauritius loo sameeyay maamul cusub oo la yiraahdo British Indian Ocean Territory jasiiradda Diego Garcia markaasi waxay noqotay xarunta ugu weyn ee jasiiradaha Jagos ka hor inta uusan militarigu imaan Diego Garcia iyo jasiiradaha kale ee yaryar ee Jagos waxaa ku noolaa dad lagu magacaabi jiray Jagosians waxay ahaayeen jiilal ka soo farcamay addoomadii iyo shaqaalihii Afrikaanka ee uu Faransiisku jasiiradahan keenay qarnigii 18aad noloshoodu waxay ku dhisneed beerashada timirta kalluumaysiga iyo ugaarsiga shimbiraha badda caruurtoodu waxay aadi jireen iskuulo yaryar oo ay taageeri jireen kaniisada Kaatooliga halka dadka waaweyn ay maalin kasta u shaqo tagi jireen warshado yaryar inkastoo ay noloshoodu ahayd mid sabool ah haddana waxay lahaayeen dhaqan iyo aqoonsi u gaar ah markii Ingiriiska iyo Mareykanku go'aansadeen in Diego Garcia laga dhigo saldhig military gaar ahaan dabayaaqadii 60meeyadii waxaa la bilaabay qorshe qarsoon oo dadka looga saarayo jasiiradda dadkii deganaa waxaa lagu wargeliyay inay si ku meel gaar ah u bixi doonaan balse dhab ahaantii qorshuhu wuxuu ahaa in jasiiraddu noqoto mid dadka deegaanka ka caagan
intii u dhaxaysay 1968 ilaa 1973 ku dhawaad 1500 ilaa 2000 oo qof ayaa si qasab ah looga qaaday Diego Garcia iyo jasiiradaha kale ee Chagos. dad badan waxaa lagu raray maraakiib ganacsi oo aan loogu talagalin bini'aadamka. markii ay gaareen Mauritius iyo Seychelles waxay la kulmeen nolol adag oo ay weheliso guri la'aan, shaqo la'aan iyo saboolnimo. qaar badanna waxay u dhinteen cudurro iyo dhibaatooyin nafsi ah, halka kuwa kalena ay noqdeen dad lagu ilaabay dal aysan lahayn. waxaa la qariyay in jasiiradan ay dad deganayeen, laakiin markii caalamka laga ogaaday in ay jiraan dad laga xoogay jasiiradan, Ingiriiska iyo Mareykanka waxay ku doodeen in amniga iyo istiraatiijiyadda caalamiga ah ay ka muhiimsan tahay dadka deegaanka. waxaana talaabada lagula wareegay Diego Garcia ilaa maanta lagu tilmaamaa xadgudub bini'aadanimo iyo gumaad dadban. maanta dadka Chagosianiska waxay ku kala fiirsan yihiin Mauritius, Seychelles iyo qaybo ka mid ah UK. waana jiil aan weligood arkin dhulkooda hooyo ee saldhigga loo bedelay. waxayna in badan oo ka mid ah ay wajahayaan dhibaato dhaqaale, niyad jab iyo dareen ku qotoma aqoonsi la'aan. waxay u dagaalamaan oo ku doodaan inay xaq u leeyihiin inay ku noqdaan dhulkooda. waxayna gudbiyeen dacwado badan oo maxkamadeed, waxayna xitaa dacwad u gudbiyeen maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ. sanadkii 2019 ICJ waxay soo saartay go'aan sheegaya in maamulka Ingiriiska ee Chagos uu yahay sharci daro, isla markaana ay tahay in jasiiradahan loo celiyo dalka uu Ingiriisku ka gooyay ee Mauritius. laakiin Ingiriisku wuxuu ku nuuxnuuxsaday in jasiiradda Diego Garcia iyo kuwa kale ee yaryar ay muhiim u yihiin ammaanka caalamka, isla markaana uusan sharci ahaan uga faaruqin. bilowgii sanadkan, gaar ahaan 22 bishii 3 ayuuna Ingiriisku heshiis la galay Mauritius. wuxuuna heshiisku qeexayaa in UK ay lahaanayso xuquuqda isticmaalka iyo howlgelinta saldhigga military ee Diego Garcia muddo 99 sano ah. The base is right at the foundation of our security and safety at home. Don't believe with that deal Mauritius will leave a finger to have Chagos. Mareykanka wuxuu si buuxda u saldhigay Diego Garcia sanadkii 1971. dagaalku ma uusan qabsan, balse wuxuu heshiis la galay Ingiriiska oo markaas weli maamulayay jasiiradda. waxaana xilligaasi socday dagaalkii Qabowga. in Mareykanku uu si weyn u daneeyo jasiiradan waxaa u sababa dhowr qodob. jasiiradan waa mid ku taala bartamaha badweynta Hindiya, meel si siman ugu dhow bariga dhexe, koonfurta Asia iyo Afrika. sidaas darteed Mareykanka wuxuu istusay inuu helay fursad uu hal meel kaga gaari karo 3 qaaradood, isagoo awood u leh inuu duqeeyo, ilaaliyo ama ciidan ku daadgureeyo meelo kala fog. intii uu socday dagaalkii Qabowga, midowgii Sovieti wuxuu xiriir dhow la lahaa dalal badan oo dhaca ama kaabiga ku haya badweynta Hindiya, sida India, Soomaaliya iyo Yemen-ta Koonfureed. Mareykankuna wuxuu doonayay inuu ka hortago saameyntii Soviyetka ee gobolka. sidaas darteed Mareykanku wuxuu Diego Garcia u arkayay saldhig laga jihayn karo diyaaradaha iyo maraakiibta diiradda saarayay marin biyoodyada muhiimka ah ee Hormuz iyo Malacca. biyaha ku hareeraysan Diego Garcia waa marin muhiim u ah shidaalka dunida ee ka yimaada bariga dhexe. marka la eegana muhiimadda tamarta, Mareykanku wuxuu doonayay saldhig aan si weyn uga fogeyn khaliijka si uu u ilaaliyo danihiisa dhaqaale. sanadihii dambe Diego Garcia waxay noqotay saldhig u diyaarsan duulaan kasta oo degdeg ah, waana xudunta howlgallada Mareykanka ee badweynta Hindiya. jasiiradan waxaa laga dhisay garoon diyaaradeed oo 3.6 kiiloomitir ah, dekad qoto dheer iyo goobo keed u ah shidaalka. waxaana si weyn loogu daadgureeyay hub culus oo uu Mareykanku ku taageeri karo ciidamadiisa ku sugan bariga dhexe iyo Asia. tan iyo markii la dhisay saldhigga Diego Garcia, wuxuu kaalin weyn ka qaatay howlgallo badan oo Mareykanku sameeyay, sida dagaalkii khaliijka ee 1991, duulaankii Afghanistan ee 2001 iyo dagaalkii uu Ciraaq ku qaaday ee 2003. waxaana jasiiradan si weyn loo hadalhayay kolkii uu Mareykanku isku diyaarinayay weerarkii duqeynta ee uu ku qaaday Iran sanadkan. waxaana la rumaysan yahay in halkan ay ku sugan yihiin B-52 Stratofortress, B-1P Lancer iyo B-2 Spirit oo ah diyaaradaha ugu awoodda badan ee qarxinta nuclear-ka iyo duqeynta fog. waxaana sidoo kale ka howlgala diyaaradaha KC-135 iyo KC-10 Extender oo ah kuwa shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha kale. sidoo kale waxaa la sheegaa in laga helo diyaaradaha sirdoonka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn. dekadda Diego Garcia waa mid aad u qoto dheer oo si buuxda u qaabili karta maraakiibta dagaal ee waaweyn, sida kuwa diyaaradaha xambaara iyo burburiyaasha.
waxaa jiraan doodo iyo warbixino caalami ah oo tilmaamaya in CIA-da Mareykanka ay halkan si qarsoodi ah ugu xirtay dad badan ama ku sameysay xarig sir ah oo ka baxsan nidaamka sharciga. waxaan arrinkan Mareykanka ku dhaleeceeyeen ururo badan oo u dooda xuquuqda aadanaha. xogo badan ayaa jira oo aan weli caddeyn, sida in jasiiradan lagu keediyo hub nuclear ah iyo inay jiraan awoodo qarsoon oo dadka laga qariyay. jasiiradda Diego Garcia waa mid yar oo badweynta Hindiya ku taala, balse waa mid leh awood siyaasadeed iyo military oo bedeli karta miisaanka caalamka. waa mid koobsatay taariikh gumaysi, musaafiriin dad iyo saldhig istiraatiiji ah oo maanta xudun u ah hardanka awoodaha waaweyn ee dunida.